بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ولا ليال وحلقة تبناد تحنيني ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها حلقة عوان كيدو وحن قرية إن شاء الله المال الحرام فساد يطفئ بركة العمر حولها حرامتها عمرك أي بركتك قادان فساد بينو كسو هالليني مركا عمرك أي فسهادين يان حولها حرامتها أحبتي في الله انت إن حلقة إن نوجد قلين waxaynu isku baraarujinaynaa ramadaankii thuluth baa tegay wa thuluthu kathiir ee aynu niyada cusboonaysiino ilaahina subxaanahu wa tacaala wixii inoo dhoweyn lahaa ku dadaallo soonka iyo qiyaamka iyo qur'aanka iyo ducada iyo sadaqadana aynu aad iyo aad u badinno walaalayaal ikhlaaskana aynu ku dadaallo ayuha alaxibatu fillah qaala allahu tabaaraka wa tacaala yamxaqu allahu riba wa yurbi sadaqaat ilahay wuxuu noo sheegay ribada in uu barakada ka qaadayo oo uu tirtirayo raadkeeda sadaqadana uu barakaynayo ajirkeedana uu laablaabayo aayad kale ilahay wuxuu ku yidhi yaa ayuha annaas kuluu mima fi lardi xalaalan tayiba dadow cuna waxa dhulka ku sugan ee xalaasha ah ee wanaagsan cuna aayad kale rabbigan wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min tayibaati ma razaqnaakum oo iyadana isla macnaha tilmaamaysa mar kale allah wuxuu yidhi walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil xoolihiinna idinka dhexdiinna ah baatil iyo dulmi ha ku cunina yani xoolo islaameed baatil ha ku qaadanin waylun lilmutaffifiin iyadana marka wax la kala gadanayo iyo marka wax la kala beeganayo in aan qofka isagu isu roonaanin cadaaladda lagu dadaalo oo markaad adigu beeganayso iyo markaad adigu qofkan aad siinaysay adiga lagaa gadanayo in aad sharciga waafajiso ayay ayaddan inoo sheegaysaa khiyaanaduna ma wanaagsana ina allaha laa yuxibu alkhaa'iniin ilahay khiyaanada ma jecla nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam isaguna axaadiis aad u tiro badan ayuu xoolaha xaaraamta in laga fogaado uu inoogu sheegay qaala calayhi salaatu wasalaam ina allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba ilahay wuu wanaagsan yahay wax wanaagsan moogiye wax kalena ma aqbalo mar kale xadiidkii imaamu tirmidi uu soo saaray nabiga wuxuu leeyahay kullu jasadin nabata min suxtin fannaaru awlaa bihi jir kasta oo xaaraam ka dhashay yani xoolo xaaraana ka dhashay naarta inay dubato ayuu mudan yahay jirka isaga ah man ghasha falaysa mina qofkiina khiyaana naga mid maaha ayuu yidhi nabiga sala allahu alayhi wasalam lacana allahu aakila ariba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayhi xadiidkaana saxiixu muslimka ayuu ku yaallaa ilaahay wuxuu lacnaday oo naxariistiisa uu ka fogeeyey midka ribada cunaya kan wakiilka ah kan ukax u kala qoraya iyo labada markhaatiga ka ah intaba dadka markhaatiga ah intaba marka walaalayaal nusuustaaso dhan waxay inoo sheegaysaa almaal alxaraam in aad looga dugtoonaado oo gurigaada aad ka fogayso ganacsigaada aad ka fogayso jirkaadana aad ka fogayso salafu hadihi lumma qaar ka mid iyagana waxay yidhahdeen sida ibnu rajab alxambali calayh raxmatullah aklu lxaraami yamnacu ijaabat adducaa xoolaha xaaraamta oo la cuno waxay diidayaan oo ay mancinayaan meeshana ka saarayaan in ducadaada la aqbalo bishii ducadaynu ku jirnaa ducadeenna in la aqbalo haddaynu doonayno xoolaha xaaraamta aynu ka fogaanno atib matcamaka takun mustajaab dacwa ayuu nabiga sal allahu alayh wasalam saxaabigii sacad uu ku lahaa waxa aad quudanayso wanaaji oo xalaal ha noqdeen si ducadaada loo aqbalo cabdullahi ibnu mubaarak raxmatullahi caleyh isna wuxuu leeyahay lian arudda dirhaman min shubha axabu ilaya min an atasadaqa bimi'ati alfin nin taajir oo ganacsado ahoo deeq badan oo sadaqa badan ayuu ahaa 1,000 dirham inaan sadaqaysto waxaan ka jeclahay 1 dirham oo qaab aan habboonayn oo caddayn igu soo gala inaan iska celiyo oo aan ka fogaado sufyaan thawri عليه رحمة الله isna wuxuu leeyahay طلب الحلال فريضة بعد الفريضة xalaasha in la dalbo oo waxa macaamilkaada uu xalaal noqdo xalaashuna waa sida sharciga uu qabo oo aanu ribo ahayn oo xooladoda uusan ahayn oo aadan beega aadan adigu buuxsanin oo aadan qish iyo balaayo ku soo qaadanin oo been iyo buhtaan aadan ku soo qaadanin xalaasha taasaa laga wadaa xalaasha in lagu dadaalo xaraamtana laga fogaado waa farad bacda alfariida salaada faradka kugu ah soonka faradka kugu ah xajka faradka kugu ah marka laga soo tago iyaga arrinkaasa ugu faradsan waxyaabaha aad qabanayso axmed ibnu xambal iyo ayma kalena arrimo noocaas oo kale ayay tilmaamayaan aan soo gaabinay walaalayaal xoolaha xaraamta ah ee aan xalaasha ahayn in la cuno raadka ay reebayaan waa maxay kow camalka saalixa ah ayaa kugu cuslaanaya maxaa yeelay qofka marka uu xaaraamta cuno oo uu xaaraam quuto jirkiisana uu ka buuxiyo cibaadada ayaa culays ku noqonaysa wabittaali raadkii cibaadada ayaa meesha ka baxaya ducada ayaan maaragtay la aqbalaynin marka dhibaato weyn ayay kuu keenaysaa xoolaha xaaraamta ah oo la cuno sidoo kale baraka ma yeelanayaan
laga yaabaa xoolihii cadad ahaan inay kuu fara badan yihiin oo aad kumanaan iyo malaayiin iyo ganacsi fara badan iyo caqaar fara badan iyo guryo fara badan iyo beero fara badan aad leedahay oo bangiyada iyo jeebabkaba ay kuu buuxaan laakiin barakadii buu ilaahay ka qaadayaa yamxaqu allahu riba wa yurbi sadaqaat waa nagii soo marnay nacfigiisiibaa eber noqonaya waxaad arkaysaa qofkii waa xooluhu haystaa fara badan laakiin walwal iyo diiqu sadri iyo fasaadu dhurriya ayuu ku nool yahay carruurtii baa ka halaabaysa isagii qalaq iyo walwal iyo walbahaar buu ku nool yahay cidhiiri fara badan buu ku jiraa noloshii baa kharrimaysa xoolaha farada badan ee xaraamta ah barakadooda ayuu ilaahay subxaana wa tacaala u tiraya mujtamaca ayaa ku fasahada xoolaha xaraamta ah maxaa yeelay ribadu marka ay badato fujuurka ayaa badanaya waxa dhacaya waad aragtaan ceebahan dunida ka dhacaya dadkii ugu lacagta badnaa waxaa weeye fasaadkii meel walba markuu gaaray dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas in jasiirado la samaystay oo dulmiga aad aragteen lagu samaynayo wamaa khafiya acdam waxa soo socdana wuu ka badan yahay marka xoolo la jamciyo xaaraam lagu jamciyo oo ribo lagu jamciyo oo lagu ururiyo o laisdul saarsaaro fujuur iyo xadgudub iyo ghish iyo hiqadiioo meesha ka baxda iyo muslimkiyo isdulmiya iyo gaaladiioo isdulmisa iyo dulmigiiyo faafa ayuunbaa ka dhalanaya marka walaalayaal qof walboo muslim ahow caqdiga aad gelayso ka fiirso shirkadaha aad maaragtay wax ku darsanayso ka fiirso insha allahu ribo ma yihiin qarar ma ku jiraa ghish ma ku jiraa khiyaano ma ku jirtaa kuwan shirkadaha samaynayow idinkuna ganacsigiina daacad ha ahaado oo waxa weeye dadka daacad ha loo ahaado biidni illahi tabaaraka wa tacala ibni aadam baa tahay haddii ay wax khaldamaan waxaa khaldamay waa inaad sharciga rabbi aad u celisaa dadka xuquuqdoodiina waa inaad u celisaa weeye inta uusan oo aad xuquuqda dadka aad bixisaa inta uusan dhididkooda uusan qalalin zakada waqtigeeda inaan ku bixinno weeye sadaqada inaan badinno weeye si xoolaheennu ay baraka u yeeshaan toobada inaynu ku dadaalno mar walba laakiin haddii ay wax naga khaldamaan waa inaynu toobada aad u badinnaa haddii aan wax ka shakinno waa inaan toobada badinnaa weeye nin sheekh oon magaciisa hadda aanan sheegaynin oo in badan waddamada galbeedka joogay 30 sano ku dhow ayaa waxa uu igu yidhi hadal aan aad runtii ugu saamoobay wuxuu igu yidhi weligay credit card waxaan la yidhaahdo kaararka bangiyada credit cardka weligay ma qaadanin buu yidhi maxaa wacay baan u qaadan weydo wuxuu yidhi waxa weeye shaki baa iga galay oo waxa weeye bangiyo gaalo oo ribo ku mucaamalaya dantayda iyo waxa markaa aniga uun shareecadu ay ogoshahay daruurada amoogiye inaan ku sii fogaado ayaan diidayaa buu yidhi dadka muslimiinta ah marka haddii wixii dulmi ah ee laga galayna waa in dulmigaasi dadkii lahaa loo celiyo weeye lagana xalaal noqdaa walaalayaal xooluhu laba waa mid un in ay zaad kuugu noqdaan jannada iyo in ay dab iyo baansiin kuugu noqdaan naarta adiga marka waxaa la doonayaa waa xoolihii waaba la jecel yahay oo waaba xulwatun khadira oo dadkii waa wada raadinayaane xoolihii aad maaragtay raadinaysay inay ama kuu noqdaan naar ay kuu geeyaan ama ay janno ku geeyaan adiga ayaa kala dooranaya waxa aynu cunayno aynu ka dadaallo ilahay baa inoo barakaynayo cumrigeenna qalbigeenna ayaa inoo nuuraya camalkeenna ayuu ilaahay aqbalayaa ducadeenna ayuu alla subxaana wa tacaala aqbalayaa markaynu rabbigeen la kulannana xisaabtu way noo fududaanaysaa ilahay waxaan ka baryaynaa inuu quudkeenna quud xalaala ka dhigo ilahay waxaan ka baryaynaa dadka dhibaataysan ee ehelkeennii ah ee jirkeennii ah ee la dhibaataysan la ildaran abaaraha rabbi subxaanahu wa tacala inuu raxmad iyo roobba siiyo nabadgelyada maalinba maalinta ka dambaysa soo xumaanaysa iyo dagaalada soo cusboonaanayana rabbi subxaanahu wa tacaala walaalnimo iyo amni iyo iimaan iyo nabadgelye allah noogu bedelo allahuma aamiin intaynu ka gaarayno xalqada 11 waa walaalkiin cabdullahi sheekh xambaliyo oo idin leh atrukukum fi xifdi illahi wa ricaayatihi wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh